حفلة أصل جوجني تلفون كذي جاجر كذا أنا يقول تخف مالي أدي ما كلام مثل أغاني دبابة بدنا haatan soo baxaya ayaa ku waramaya in gabar aalada TikTok aan ka ahayd oo gabdhaha halkaasi aan ka mid ahayd oo lagu magacaabo Mr. World in lagu afduubtay Muqdisho oo laga waayay dhammaan goobihii ay ku sugnayd isla markaasna warbaahinta ay u soo bandhigeen qayb ka mid ah Axsabteda oo ka hadlaysa ayaa waxay dhaheen in waxa la waayay xalito koox dhalinyaro oo asxaab ay ahaayeen ee ku balamisay meel ay isugu yimaadeen kadibna halkaasi lagu waayay waxay yiraahdeen ilaa haatan waa la leeyahay gabdhaha ka mid ah kuwa Axsabteda ugu dhow ayaa soo dhigay baraha bulshada oo sheegay in gabi ahaanba haatan jaani cirib halka ay dhigtay aan la ogeyn waxa kale oo ay sheegeen in ummadda Soomaaliyeed loo codsanayo inay cid allaale ciddii aragtay in la soo xiriirto si qoyskeeda oo aad u murugsan ay ugu farxaan ay sheegeen warbixinta waxa aad u sii dhameystiraya qayb ka mid ah dadka Axsabteda واسمع نقطة أذكر عن حالة حفلة أصل جوجني تلفون كذي جاجر كذا أنا يقول تخفى بناي كنت أجري هذه سيدي إلا هذا كان كلها يا قال ما كان بحث حالي داي ولا أفضلتي قال وحيداي والد قال وحيداي ولا استا أنا إلا هذا أبي إنه ما شاف شيء ما قال تلفون كذا مواد كوميشن جري سوق عسى ولا يا محايد كل سنة قف على قف إنه سحريريو والله يقول مسكين وما قال وحلا هستو مالي أدي ما كلام مثل أغاني دبابة بدنا gabadhaasi haatan hadlaysay waxay ka mid ahayd dadka sida khaaska ugu soo dhaweeyay Muqdisho gabadhan oo markii hore ay ka soo ambabaxday dalka Kenya khaasatan magaalada Nairobi oo safar ay kaga soo ambabaxday halkaas oo ay caan ka ahayd oo ay ka isticmaali jirtay aalada TikTok dadka ugu culusna ay ka mid ahayd kuna soo bandhigi jirtay muuqaallo in halkaasi ay ku soo gudbin jirtay yeeshee dhowr isbuuc ka hor ayay safar kaga imaaday magaalada Nairobi ay ku soo gaartay Muqdisho run ahaantii Axsabteda qaar ka mid ah ama dadkii soo dhaweeyay ayaa sheegeen in lagu waayay marqura xalay markii ay kooxo balamiyeen oo ay isgaranayaan hase yeeshee ay garanaynin halka ay ka baxday jaani ciribna ay dhigtay warar kala duwan ilaa haatan oo saaxiib lama hayo laakiin warbaahinta qaybaheeda kala duwan ayaa isla dhaxmaraysa warar sheegaya in lagu afduubtay isla markaasna shakhsi ka mid ah dadka soo wacayay oo ka mid ahaa markii ugu wardambeysay shakhsigaasi uu la xiriirayay kadibna ay tiri halkaasi ayaan u baxayaa ay haatan lama oga wixii ku soo kordhayaan halkan ay ku soo gudbin doonaa ilaahantiinba aad ayaad u mahadsantihiin halkan waa janalka Daawo.